gudaha ururada bulshada iyo weesiyo Umar Sheekh Abdullaahi ogan Allahu Akbar hawadaha xaruudo hay saraacdo idigana aad u maasantihiin aad baan u faraxsanahay maanta kulan ka soo qayb galay gudoomiyaha Jamhadda Wadaniga Xorinta Ogaadeenaya sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan guddiga fulinta iyo qaybaha kala duwan bulshada aad baan u faraxsanahay runtii maanta waa maalintii gudoomiyaha codka soo jeedin lahaa runtii waqtigan laga qaatay laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka Jamhadda Wadaniga Xorinta Ogaadeenaya ظاهر محمد علي ظاهر باستو سوسو دوي قدوم ان شاء الله قدوم ظاهر كسرو بسم الله الرحمن الرحيم وغادي عدو غيدنا ومدى الصومالي هذا البدن مهرين وحي هلا هذه الهمشة ولا هذا waxaan rajaynayaa hadii ilaahay yiraahdo kala gudoomiyaha joogo isagana uu jeedin doono hadalkii aan ugu talagalay meeshan iyada inuusan hadal kale oo dheeraad jeerin wadana gudoomiye waxaan ka codsanaynaa inaad mikrofoonka ku soo dhawaato adigoo mahadsan Allahu akbar Ilaahay baa weyn Soomaaliya israacdo hamidowdo ogaadaya xarowdo gumaysi waxa dhaco idinkuna guulaysta insha Allah waxaad arkayseen xilliyadii aan soo dhaafnay in geesiyada gabdhaha iyo ragga ah halkan ay kala hayn Itoobiya ha dhacdo gumaysigu ha dhaco fariin baan rabaa inaan gudbiyo sababta keenaysa waxaa weeyaan shacabkan dareenkiisu gudbinayaa dhibaatada loo geystay muddo 100 sano ah gumaysiga loo geystay calan lagu hoos dilay gabdhahooda la kufsaday xoolahooda la dhacay oo tii u dambeysay hadda ay subcisayd waxay ku dhacay arkaysan halkaas ayaa shacabka ka keenaysa inay Itoobiya ha dhacaan marka kama shalaynayno cidna ugama gabanayno xaq baan ku leenahay dib bayna gaarsiiyeen maamuladii kala duwanaa meelaha qabana gaarsiiyay hayla salaasana gaarsiiyay mingistaana gaarsiiyay melas baan gaarsiiyay abina wali waxba noogama qaban marka kama xishoonayna mana ka cabsanayna Itoobiya ha dhacdo ilaa xaqeena ogolaato
fariinta way ku socotaa madaxda Itoobiya macnaha kama cabsanayno inaan gumaysi weynaano ha dhacdo inaan sababta waxa weeye waan ciilanahay xaqani baa ku maqan weli heshiis baan la galnay 4 sano ka hor waxa ka hirgelay oo kaliya qodobkii xabad joojinta ahaa iyo dadkaygii gacanta loo geysanayay laakiin waxa la wax xaquuq aan lahayn ma jiro waxba kama hirgelin dastuur baa Itoobiya u qoran xuquuq badan buu ogol yahay wuxuu ogol yahay ismaamul federalism weli madaxdeen waxay ku mashquulshan tahay inay iska laaluushaan si ay uga badbaadaan waa maalmo in cusba loo soo magacaabaya cabsi bay ku nool yihiin annaga cabsi kuma nool ilaahay baan xoreeyay qalbigan xor ka nahay joocaadaan nahay qalbiga ayaan xor ka nahay qalbigeena ilaahay ma oga cid kale wax uma dhimi karo waana la dili karaa waana la kufsan karaa waana la dhici karaa laakiin xor baan ka nahay maskaxda iyo qalbigaba intaa waxaa weeyaan ha ka cabsanina inaad tirahdaan ha dhacdo ilaa xaqeena ay ogolaato marka waxaan arkay qaar xoogaa yar marmaqa hashkadaynaya nacaybka ayada abuuratay waana in ayadu bedesho weeye xaqeena in la ogolaado weeye sabab aan ka leenahay nairobi baan ka hornaynaa london baan kooqashito baan ka hornaynaa xaqeena weli Itoobiya uu ku maqan yahay boqolkiiba 10 kama hayno waddanka waxaa ku yaala aeroboortka ku yaala bangiya ku yaala waxaa ku yaala hay'ado biya ku yaala federaala boqolkii 5 Soomaali kama aha dastuurku wuxuu qorayaa qowmiyad walba inay waxada maamulato ayadoo leedahay waxa federaalka jirana dadku wada dhaxayso intaasoo milyan oo gaari baa Itoobiya taalla 5 gaari halka taalla oo Soomaalida iyo Allah way ku soo bariyeen yamaano marka lagu jiidanaya sabab loo qaadanaya haya waa kontraband laba halaad oo dad masaakiin ah oo 10 sano dhaqay oo aan meel ka gataan lahayn ba ayagoo socdaalii laxda ayagoo marnay waa kontraband way gabdhaha masaakiinta ee agoonta korinaya yaa laba shay ka soo qaadan wajaale dhaxda inta loo fariisay waa kontraband way waa la qaadanaya xabashi baa laga gadayaa ma aqbalayno Itoobiya ma aqbalayno mana ogolaanin ilaa xaqeena ogolaatay ayadoo hal dhinac kama soconayso marka fariinta madaxda Itoobiya ku socotaa Abiy ku socotaa Mustafa ku socotaa halka wakiilka hadday doonayso inaan raano Itoobiya baraarto ayadoo waa inay baraariso way ma jirto wax liina one way street hal wada kala dhac loo mara ma jirto laba dhac waa inuu socoto way waxa weeyaan markan sababta qaar ba waxay ugu yiraahdaan waraysi qaada calanka Itoobiya maxaad xagga ugu riixaysaa muxuu calaamad igu yahay aniga dhimasho dhiig kufsi iyo dil wax kale miyuu yahay waligu ma marka ilaa ay ka bedelanto anagu waan calacalaynaa waan ambaaraynaa waxaana ka sheegaynaa marka ha ka cabsanina intaas kaga baxaya guud ahaan Itoobiya maanta wada socotaan marxaladda meesha marayso dagaalo badan baa ka dhacay qoomiyadihii fooda iskula wada jiraan saasoo ay tahay haddana heshiis baa lagu gaaray xagga iyo waqooyi oo hadda heshiis baa lagu seexday dowladda Kenya iyo dowladda South Africa heshiiskaas saameynta uu yeelan doono waan eegaynaa laakiin guud ahaan Itoobiya waqti fog bay ku qaadaysaa heshiidkaas hadday dhaqankeeda bedelin dhaqanka isku dulnoolaadka dhaqanka hal qoomiyad dhaqankeeda iyo afkeeda iyo diinteeda kale inta kale sanka dadka laga gelinayo dhaqanka annaga ku fikirayna adigu xataa badaaca la leeyahay marba xagga loo rogi si jawaanka bariiska marba dhacba loo rogaa hilibka marka la dubay marba dhacba loo rogaa dhaqanka hadduu isbedelin Itoobiya weliga dagaalka ma dhamaanayso cadaalad haddaan la helin sinaan haddaan la helin waxyaabaha la qortay shuruucda la qortay in la hirgeliyo haddaan la helin haddii aan la helin dimuqraadiyad iyo shacabkanu ciday rabaan inay dooran karaan ciday rabaan taga oran karaan annagoo jabhada waxba haysan baa dimuqraadi ah oo marba qofkii la rabo la dooranay qofka labana baxay marka Itoobiya isbedel baa ka socda wax ka iman doona ma garanayno annaga marka maxaan haysta abaar baan haysta hadda waxa la sheegay shalay deegaan idoo la bishilintii wax ka sheey af dheer liiraahday wax ka sheey dadku inay ka qaxeen eber dadkeena boqolkiiba 70 kor ba soo qaxeen abaarihi weli ma dhamaan way baabaasan yihiin tuulooyin baa dadku ku noolaa caruurta inay ku dhimato afka qarka u saaranta alxamdulillah xawaa roob baa daay meelo kooban buu ka daay marka weli abaartii way taagan tahay shacabkeena ogaada in la isu gurmado waxaa farxad weyn leh dadkeenu bisalkiisa marka kale way murmaano reeb la laakiin markay dantu timaado abaaruhu yimaadaan dadkeenu way isku soo guuraan waa la soo dhaweeyaa biyaha waa la wada cabaa daaq waa la cudo cunaa taasna waxaa weeye
وواحد dadka uga doonaya ilaahay inooga tirabadii Soomaaliyeed kale waxa weeyaan waa niyada fiican weey waxa weey saas oo kale jeebkan soo inuu noqdo weey dadka soo qaxaya dadka baahan dadka masaakiinta in laga warhayo weey xubnaha jooxana waa inay mar walba ogaadaan dadkooda u hadlaan weey daaran loo ururiyo gacan la siiyo dadka soo jaba haday joogan tuulo iyo haday joogan ceel haday joogan muxuu meel walba waa meel joogan fariinta xubnaha jooxan u diray dadkooda way u baahan yihiin idinka yaa u maqadiyo ilaahay انت وحادر سعر بر غير عادي لكن وانا لا وداغا شالي ما انت waxaan arkay ingiriis kale boqolkiiba 10 buu tahay sicir bararku noloshooda hal ka badan weligood ma tagin marka adduunkooda horta wuu ololaya kaliya ma gaajaysiin ogaada kuwii lacagta lahaa ee warshadaha lahaa baa rafaadsan laakiin anagu maxaan dheernahay iimaan baan leenahay gaajada waan naqaanaa dadka gaajada ku cusub ay dhibaysaa yaa ilaahay baan nabaday waan naqaanaa sida loo gaajoodo iyo sida loo dhirka labadaba marka sicir bararka uu jiraa waxa inta dheer waa maxay gumaysi midabta koorkan ka hadlayay shacabkayga waxa weyn ma ganacsan karaan haday beeraha ay faran lahaayeen cagaf ma haystaan shidaal ma haystaan waxa bini'aadamku ku baahan yahay idin ba halka loo taagan yahay marka dawladdan ama dawlad baas aan noqoto anaga tagto ama dadka xaq ilaahay naasiiso annaga ka jooxaan xubnaheena xil baan saaran xabadu kaliya ma wax lagu dagaalamo qalinka lagu dagaalama afka lagu dagaalama dadkaagood baraarujisa lagu dagaalama runta sheegta lagu dagaalama runta sheegto aad ban garyare ugu farxay hadalku lahaa jooxan ay waan yaro maxaad u leedahay wiilaahan jooxa waan innaka ma cabsanay samaan kuleena halka kuleena adduunka walba ka sheegaynaa xaqa ummadan annaga u taagan waan u dagaalameynaa waan qalin baan ku raadinaynaa aqli baan ku raadinaynaa nooc walba oo bini'aadamku ku halgamaynaa si xaqeena nu helno wali xaqeena waa naga maqan yahay laakiin maxaa muhiima xubinka jooxo xubnuhuna way sheegay runtii maanta waxaad moodaan isku wada fikirnahay xubinka jooxo dadkiisa inuu bisleeyo weeye dadkaaga inaad midayso inaad bislayso weeye qofka xaqiisa isagaa u dagaalami kara dadkeenna waxaad moodaa inay aaminsan yihiin inaan dowladda waaweyn dowladda malaka inaan ka lacag badannahay bay aaminsan yihiin inaan ka lacag badannahay waxay ku orayaan maxaad waxa u sameyn weydeen bayaan ma soo saarteen ma ka hadashin city ma ka hadashin mooyaale ma ka hadashin kontrabankan dadku waxa weeye halganku kuma socdo af kuma socdo taageerada loo baahan yahay garabkooda loo baahan yahay shirkooda loo baahan yahay aqoontooda loo baahan yahay aqoonyahankeenu waxa loo baahan yahay inuu fahmo Soomaali haddaan nahay annagu inaan iska dulqaadno dulliga mooge cidna kuma siinayso waxa kuma siinayso anoo sabaan badana bariyaan ku maqnaa dagaalka ka jiray waxaad arkaysaa qowmiyada kale qola aamusan ma laha telefishinada meel walba haddaan nahay maxaaro haddaan oromannahay haddaan tigreennahay haddaan benishangul hal aqoonyahan Soomaali meesha taagan arki maysid baaska anigu waa aqaanay hal midku halka taagan kuga hadlay qola hadda meelaha wax yar kaga hadshmeel yar laakiin maxaa u diiday afkooda yaqaanaan aqoonyahankeena way wada fooraan haddaad tiraa warkaale warqadan bal akhri maxay in ka qabxo kulay waagaan iskuulka joognimo ma noo dhigi jirnaa waa iska xagan dhigi jirnaa markuu canjeerada cunayna wuxuu dhihi boodha barnaamijada ku hadlaya oo afku u yaqaanaa marka haddaydan dadka haddaan loo hadlin haddii dadkan ayagu ayaan hadlan cidna wax ma siinayso Soomaali hadday xaqeeda sheegan xabad kaliya maaha haddaad tiraa war Itoobiya xaqayga waa iga maqan yahay dambi maada gelin dastuurka ku ogol shuruucda Itoobiya ogol xuquuqul insaanka yaa ogol waa lagu cabsiinoo dhibka lagu dhufan haddaad arsadeha khayr alxamdulillah maxaa kaa galay haddaad shafartiga gelis aad marka degdeg halba laga istaagaya marka xubnaha jooxaal xubnaha dadkooda inay baraarujiyaan qof walbaba ka bilow tuulada ka bilow muxaayalka meel walba fariiso idinka sheekaysanna yani meelaha inta kaliya haddaad weligiis hanuunisaan maxaad faa'iidaysaan wax ma faa'iidaysan hala socdo hala firdho dhulka hala galo sida maxaa dadka dhulka loo galo shacabkeena hala bisleeyo hala dhiirigeliyo waa la duleeyay waa la dilay 20 sano u dambeeyay qofku wax ku dhihi uu foorsan markii wax laga hadlay hada kuwa kale foorsan jiray maanta ay dalka xukuma oramo bisaas kale han jirtay maanta waxa weeyaan an jirtay bay leeyihiin maxaa waan jirnaa annagana waan jirnaa annaguna soo ma jirno annaguna waan jirnaa waliba annaga ka sii jiriyo marka waxaan leeyahay hala dhiirado guud ahaan waxaa weeye isbeddel baa Itoobiya ka socdo qaybteeda waa ka qaadanno waa la iswada xoreynaya qola walba is xoreynaysa
gumaysigu qolo gooniya ma hayo amxaarada lafteeda gumaysi bay ka sheeganaysaa amxaarada markaad la kulanto waa in la gumaysanaya bay leeyihin federaalkana gumaysanaya oromada waa in la gumaysanaya bay leeyihin tigray waa leeyihin annagana waa in la gumaysanaya laakiin annaga aamusan afkii baana la qabtay war ha la qayliyo oo afka ha lagu hadlo afgaalaadka baas aan la garanayn intaa markaan ka gudbo waxaa weeyaan xubnaha jooxo xil badan baa idin saaran anu maanta xubnahan la hadlaya xubnaha jooxaan la hadlaya xubnaha gabdhaha waa la amaanay gabdho fiican wey raggana waxaan leenahay waxaa weeyaan qofku hadduusan noloshiisa ku filnayn xor ma aha dhagax ha la jebiyo ha la shaqaysto sheekada ha la daayo beeraha ha la fasho ha la shaqeeyo ha la tacbado wax dawladda wax laga hela faa'iido ma laha dhulkaaga ka dhirki kartaa beer uu leeyahay dhulku dhagax buu leeyahay geed buu leeyahay wax walbuu leeyahay ha la shaqaysta ragga boqolkiiba 70 ragga soomaalida waddanka jooga ma shaqaystaan halkaan bay foorinayaan kuwa baadiyaha joogan waxaa qaadkii bay barteen waa kasii dareenba labada caaga caanaha carso cabi lahayd waxaad arkaysa ceelka loo safrinaya mijinjaada la gadanaya warjaadka waa cunaya beerta asaga laftiisa jaadka laftiisa beerta waa geed dhulka lagu beere haddii kale mirmiriga iska cun laftiisa waa lagu malqaamiyey marka waxaa weeyaan raggu shaqaa laga rabaa ragga xubnaha jooxa weliba shaqaa laga rabaa waxaa weeyaan taas labadii markii la isku daro waa maxay ilaahay mawcid kalena xukunta martaa hore idinku sheegay yacni isku tashiga wuxuu noo keenay inaan si geesnimo miiska u qaraacayno maanta oo jooxana aan leenahay etoobiya runta u sheegayno oo maraykan runta aan u sheegayno oo cid walba runta aan u sheegayno midda labaad waa maxay midda labaadna waxaa weeye dhiiranaan waa inaad la timaadaan wey waa inaad dhiiranaan la timaadaan cabsida waa inay ka baxdaan shacabkiinu cabsida ay ka baxaan hadda waxaa socda etoobiya laba un bay mid noqonaysaa etoobiya laba un bay mid noqon kow in wax la wada leeyahay bahasha xunta meelahaas taagan la wada leeyahay nin walba cadkiisa u qaato iyo inay fadli shuhur fil har noqoto laakiin cidii diyaarsan baa ka qaadan karta sooma hurdaan ku jirnaa shacabkeena guud ahaan dowladdeena halka joogta horday ku jirtaa gurbaan baa loo tumeeyaa annaga lafteena waxaad mooddaa inay hadda nagu soo xirxiran tahay marka waxaa weeyaan ha la soo baraarugo ha la soo jeesto etoobiya diyaargarooba qabiil walba ku jiraa qolo walba ku jirtaa qabiil markaan leeyahay waa shucuubtaan ka hadlaya shacbi walba oromo way diyaargaroobaysaa maxaar way diyaargaroobaysaa daraad ninkii wasiirka muxuu ahaa waxbarashada barnaamijka wuxuu yidhi shacabka maxaarada waa inay hubka qaataan oo iska ilaaliyaan waxaa ku soo socda annaga haddaan dabna ama afkaana guban idinkuna inaad diyaargaroodaan wey waa saas wey idinku inaad diyaargaroodaan wey annagu dagaal ma ogeyno inta lama dagaalamayno waa dhulkeena difaacan karna weeye in haddii wax la qaybsan karna qarkeena qabsan karna wey marka qalbiga ka diyaargarooba gacanta ka diyaargarooba jaabkana ka diyaargarooba wabilaahi tawfiiq aad baan idin salaamaya ogaadaya xarowdo soomaaliya israacdo jooxana ha midowdo guulaysta